Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta waa idin salaamay maanta waxaan soo jeedi doonaa muuqaal ku saabsan cryptocurrency hadda xoogaa faahfaahin ka dhigno cryptocurrency waa lacag digital ah oo hadda adduunweynaha dhan wax lagu kala gato cryptocurrency-ga lacagaha ugu caansan ee loo yaqaano cryptocurrency marka loo eego suuqyada waa Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash iyo Litecoin. Lacagaha kale ee loo yaqaano cryptocurrency waxaa ka mid ah Tezos iyo EOS iyo Zcash. Qaar waxay la mid yihiin Bitcoin, qaar kalena waxay ku saleysan yihiin tiknoolajiyad kala duwan ama waxay leeyihiin astaamo cusub oo u oggolaanaya inay sameeyaan wax ka badan qiimaha wareejinta. Crypto waxay suurtagal kaga dhigaysaa in lagu wareejiyo qiimaha khadka tooska ah iyadoo aan loo baahnayn dhexdhexaadiye sida bangiga ama processor-ka lacag bixinta, taasoo kuu oggolaanaysa inaad isticmaasho 24 saac. Lacagta loo yaqaan cryptocurrency inta badan ma soo saarto ama maamusho dowlad ama maamul kale oo dhexe. Waxaa maamula shabakadaha isku faca ah ee kombiyuutarada ku shaqeeya software bilaash ah. Guud ahaan qof kasta oo raba inuu ka qayb qaato wuu awoodaa. Haddii bangi ama dowlad ayna ku lug lahayn, sidee buu crypto ammaan u yahay? Waa ammaan sababtoo ah dhammaan wax kala iibsiga waxaa lagu qiimeeyaa tiknoolajiyadda loo yaqaano blockchain. Blockchain-ka cryptocurrency wuxuu la mid yahay xaashida dheelitirka ama ledgerka bangiga. Lacag kasta waxay leedahay blockchain u gaar ah, taas oo socoto si joogto ahna dib loogu xaqiijiyo diiwaanka wax kala iibsiga weligeed la sameeyay iyadoo la isticmaalayo lacagtaas. Si ka duwan bogagga bangiga, blockchain oo loo yaqaan crypto blockchain ayaa loo qaybiyay ka qaybgalayaasha dhammaan shabakadaha lacagta dhijitaalka ah. Ma jiro shirkad ama waddan ama cid saddexaad oo gacanta ku haysa, cid kastana waxay ka qayb qaadan kartaa blockchain. Waa tiknoolajiyad horumarsan ee dhawaan la sameeyay ilaa 10 sano oo sayniska kombiyuutarka ah iyo hal abuurka xisaabta. Ku dhawaad dhammaan lacagaha loo yaqaan cryptocurrency ay ku jiraan Solana, Ethereum, Tezos iyo Bitcoin Cash waxaa la hubiyaa iyadoo la isticmaalayo tiknoolajiyadda loo yaqaan blockchain, taasoo si joogto ah loogu hubiyo xaqiijinta qadar aad u badan oo xisaabeed ah. Marka application-ada ugu fiican ee laga maalgashi karo cryptocurrency waxaa ka mid ah Binance, Trust Wallet, waxaa kaloo ka mid ah Coinbase, waxaa kaloo ka mid ah midkan kale Pocket Pay. Intaasaa ka mid ah marka intaasna sida la iskaga diiwaangeliyo dhammaantooda adoo Soomaaliya jooga insha Allah soo geli doonaa isla muuqaalkan kan ku xigo waxaan soo geli doonaa qaybta ku qoran tahay wallets cryptocurrency insha Allah ka faa'iideysta. Haddii channel ku cusub tahay subscribe noo saar muuqaalkan tan like noo saar.